idinkoo mahadsan muhiimadda oo ay ka qalin jabiyeen ardayda Soomaaliyeed waxaan dareen gaar ah fariimaha ay bixinayaan indhihiinana ay muujinayaan mustaqbal wanaagsan. waxbarashadu waa iridda horumarka waana wado lagu gaaro isbeddel bulsho 30 sano oo burbura oo ku jiray dalkan waxaa cad in hadda horumar ballaaran laga gaaray waxbarashada. waxaana tusaale inoogu filan tirada dhalinyarada ah oo maanta soo gaaray heerkan waxbarasho. dowladda Soomaaliya waxay waqtigan muhiimad siinaysaa horumarinta bulshada gaar ahaan dhalinyarada. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo mas'uul uga ah shaqo abuurka waxay laba jibaaraysaa dadaalada shaqooyinka ay ku helayaan dhalinyarada oo bulshada ka ah 70%. mudanayaal iyo marweyn ardayda sharafta leh waxaan idin xaqiijinayaa in wasaaraddu ay diyaarisay siyaasadda shaqo abuurka oo qorshuhu yahay bilowga sanadka cusub in la daafuro waa dadaal xalka inoo dhaweynaya in fursado shaqo loo helo dhalinyarada. sanadihii ugu dambeeyay waxaa la gaaray guulo balse weli waxaa ka durugsannahay halka aan u socono oo ah in dalka uu gaaro heerkii la isku haleyn karo oo shaqooyin u qalma muwaadiniinta Soomaaliyeed. gabagabadii waxaan jeclahay inaan idinku hambaliyeeyo guushaan weyn ee waxbarasho waxaana idinkula dardaarmayaa inaad xoojisaan dadaalkiinii aqooneed idinkoo xoogga saaraya xirfadaha dalka Soomaaliya waxaana maanta mustaqbal u ah halka aad u jihaystaan. xoojiya midnimada oo labalaba wadada saxda ah ee ina sugaysa.